وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودروسي أنكو قادنيني قصص في القرآن الكريم، qisooyin ku yimid kitaabka ilaahay, ku soo aroray qur'aanka kariimka ah. ilaahay inooga waramayo si aan wax ugu qaadanno, ugu fikirno, ugu waantoogno. qisadan maanta aan soo qaadanayno axibbatii fillaah waa qisad cajiiba. waa qisad tilmaamaysa siraaca, loolanka xaqa iyo baatilka, xumaanta iyo wanaagga, iimaanka iyo gaalnimada. qisadani waxay ka dhacday gurigii fircoon, weliba waa ehelkii fircoon. kelmaddan fircoon marka aad maqashid waa kelmad laga naxo. waa nin adag, waa nin wax dili jiray. fircoon waa nin qooqay, waa nin sanka taagi jiray, waa nin ilaahnimo sheegtay. waxa uu yidhi: maa calimtu lakum min ilaahin hayri, ilaah aan aniga ahayn iniima ogi. bal waxa uu yidhi: ana rabbukum alaclaa, rabbigiinii ugu sarreeyey waa aniga, ayuu yidhi. ninkaa fircoon nin dulmi badan ayuu ahaa. reer banu israa'iil wuu dulmay. wuxuu ahaa mid dila, qala ciyaalkooga yaryar, yudabbixu abnaa'ahum. wuxuu ahaa mid reebta dumarkooga addoonsada ayuu ahaa. nin naxa ma ahayn, nin naxariista ma ahayn, nin aad u daran ayuu ahaa. nebi muuse calayhi salaam ayaa u yimid si uu ilaahay u baro, si uu diinta u baro, si uu islaamnimada u baro. wuxuu u yimid nebi muuse si uu u xoreeyo dadkan uu addoonsanayo ee reer banu israa'iil. laakiin ninkani nin naxa ma aha, nin ilaahnimo sheegtay, nin qooqay, nin dhiigga uuna waxba la ahayn. haweenaydiisii aasiya way islaamtay, uu dilay. gabadhii yaraydee aqalka uu shaqaynaysay ee hablihiisa timaha u feedhi jirtay, ee maashitatu aalu fircawn la odhan jiray, way islaamtay, uu qalay, uma aabba yeelin. idan wuxuu ahaa ninkaa adag. dadku way ka cabsan jireen, way ka argagaxayeen. dadku way caabudi jireen, way u sujuudi jireen. wuu addoonsaday. ilaahay baa yidhi: fastakhaffa qawmahu fa ataacuuhu. wuu fudaysaday, wuu ku tuntay,
dadkiisii kadibna way adeeceen. أحبتي في الله ninkan aan ka waramayno waxaa la yidhaahdaa mu'minu aali fircawn. wuxuu ahaa qibti, wuxuu ka soo jeedaa fircawn qabiilkiisa ayuu ka soo jeedaa. addoon ma aha, reer banu israa'iilna ma aha. ninkani magiciisu qur'aanka ma sheegin, tilmaamihiisana ma sheegin. ficilkiisa iyo iimaankiisa ayuu qur'aanku sheegay. qur'aanku waxa uu ku tilmaamay mu'minu aali fircawn inuu ahaa nin mu'mina oo ehelka fircawna inuu ahaa. ninkani axibbatii fillaah wuxuu ahaa nin qasrigaasi guriga maamulka ah ku soo koray ayuu ahaa. dadka la taliya fircawn ayuu ka mid ahaa. wasaaradda fircawn ayuu ka mid ahaa. nin wuxuu ahaa rumeeyey nebi muuse calayhi salaam, laakiin iimaankiisa qarsanayay, qofna uuna ogeyn ayuu ahaa. ninkani waxay leeyihiin bacd alculamaa sida imaamu siddi oo kale, waxa ay leeyihiin wuxuu ahaa fircawn inaadeerkii ayuu ahaa. qasrigaasi ayuu ku jiraa, waa mu'min, nebi muuse ayuu raacsan yahay. ninkani arrimaha nebi muuse marna kuma soo qaadin fircawn, laakiin nebi muuseu taageersan yahay, xaquu taageersan yahay, iimaankuu taageersan yahay. mar walba wuxuu isku dayayaa nebi muuse inuu u kaalmeeyo. waxaa dhacay axibbatii fillaah, fircawn wuxuu maalin maalimaha ka mida uu soo ururiyey oo iskugu keenay wasaraadiisii, dadkii la talinayey, dadkii xukunka la waday, dadkii maamulka waday, dadkii mas-uuliinta ahaa, xaashiyadiisii, dadkii oo dhan buu meesha iskugu keenay intuu la tashanayey. arrin weyn ayaa jirta. maxaa yeelay maxaa laga tashanayaa? waxaa laga tashanayaa arrintii nebi muuse ayaa faaftay. dacwadii ayaa bilowday inay meel walba ay gaadho. fircawn wuxuu cabsanayaa kursigiisa, carshigiisuu cabsanayaa. fircawn wuxuu cabsanayaa inuu meesha muuse la wareego. sida awgeed fircawn wuxuu soo ururiyey dadkaas oo dhan ayuu meesha isku keenay. waxaa ku dhex jira mu'minu aali fircawn, kaa mu'minka ah ee aali fircawn ayaa ku jira. fircawn baa hadlaya, qoomkiisii buu la hadlayaa, wasaraadiisii iyo xaashiyadiisii ayuu la hadlayaa. fircawn waxa uu yidhi وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون waxa uu yidhi ذروني isku kaayadaaya, ii daaya aniga, aqtul muusa, muusaan dili, waliyadcuu rabbahu, rabbigii ha u yeedho. muusaan dilayaa, naftaan kaga qaadayaa, waan dilayaa, ii daaya buu yidhi. maxaa yeelay innii akhaafu, waxaan ka cabsan an yubaddila diinakum, diintiina inuu inaga bedelo ayaan ka cabsan, aw an yudhira fi lardi alfasaad, ama arladan inuu fasaadiyo ayaan ka cabsan. subxaan allah, waxaa la iskugu yimid qorshayn, waxaa la iskugu yimid nebigii ilaahay nebi muuse in la dilaa la doonayaa. kaliimullah ayaa la doonayaa in la dilo. rasuulkii ilaahay, daacigii, muslixii ayaa la doonayaa in la dilo. wax dembiyo uu galayna ma jirto, waa lagu been abuuranayaa. fircawn waxa uu leeyahay laba arrimood baan u dilayaa sababteeda.
تكوبات دين تنو إني بدليا دين عصب أيو لا إيمانيا طلبات للك وفسادينيا حمان بوكينيا أرنتاسي قرشهاسي فاشحل مركي مقل النبي موسى إلا شريو إلهي أيو توبت كاني إلهي بو النقضي إلهي بو بريي إلهي بو قرقار سدي وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب نبي موسى وحوي إلهي بان قرقار سدي إلهي بان النقضي إلهي بان ترسارتي إلهي بان خير كرتشينيا إلهي بان شر أردنا كما قنقليا عدت بربي ربي أيان كلمة ويدي سنيا waxaad doontaan sameeya waxaad doontaan sameeya waxaan ka cabsanaya male وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب بدو البؤس وينين بدن أن رمين آخره إلهي أيان ككاشنيا إلهي أيان هسقليا ما شاسي شركاسي lasoo qaatay qorshahaasi lagu fikirayo sidii nebi muuse loo dili lahaa calayhi salaam kii muslimka ahaa baa ku jira kii mu'minka ahaa ayaa ku jira kii aali fircawn ka mid ahaa ehelkii fircawn ayaa ku jira laakiin iimaankiisuu qarinayay intii hore oo dhan laakiin iminka wuxuu arkay inay arrintu fool xun tahay in la doonayo nebigii ilaahay in la dilo ayuu arkay meeshaasi ma adkaysanayo ma sabrayo uma dulqaadanayo nebiga ilaahay la dili maayo kadibna isagii ayaa hadlay waqaala rajulun mu'minun min aali fircawna yaktumu iimaanahu ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah kii mu'minka ah ayaa hadlay buu ilaahay leeyahay gacantu taagay halay ogolaa yidhi hadalka kadibna waxa uu yidhi isagoo oo hadlaya iimaankiisa buu ilaahay leeyahay ninkaasi iimaankiisu qarina yaktumu iimaanahu ataqtuluuna warma waxaad dilaysaan rajulan nin baad dilaysaan an yaquula rabbiy allah inuu yidhi rabbigay wa allah miyaad ku dilaysaan xaqii buu inila yimid waqad jaa'akum bilbayinaat kitaabkii buu inila yimid xujajkii buu inoola yimid wax ina qanciyo inoola yimid wanaageenu inoola yimid khayrkeenu inoola yimid ilaahay buu ina barayaa diintuu ina barayaa ma rasuulkaasi ayaa doonaysaan inaad dishaan war ma nin baad doonaysaan ood u tashanaysaan oo doonaysaan inaad dishaan la rabbigay waa allah wax kale uu sameeyey male idan walaalayaal ninkaasi wuu adkaysan waayey wuu dul qaadan waayey arrin foolxun bay noqotay arrin ku culusaatay ayay noqotay madaxiisuu qaadan waayey inuu meesha u fadhiyo uu dhegaysto xaqii baa ka soo baxay xaqii buu ku dhawaaqay fircawn agtiisa ku dhawaaqaya fircawn agtiisa ayuu runta ku sheegayaa nebiguna wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam afdalu ljihaadi kalimatu cadlin cinda sulطaanin jaa'ir waxaa ugu fadli badan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam jihaad kelmad runa oo cadaalada oo lagu ag hadlo loo sheego qof imaama oo sultaana oon dadka cadaalad aan u yeelayn oo runta loo sheego oo qofkaasi uu dilo kaas weeyaan jihaadku ninkaasi wuxuu isku dayey inuu difaaco rasuulka ilaahay inuu badbaadiyo rasuulka ilaahay inuu yidhaahdo ma nin baad dilaysaan inila yimid xaqi wanaaggii inila yimid sidaasoo kale ayuu abubakar sidiiq ayuu sameeyey radia allaahu canh nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo kacbada agteeda ku tukanaya ayuu yimid cuqba ibnu abi muciid maruu soo qaado nebigu qoorta kaga xidhay sala allahu calayhi wasalam uu ku adkeeyey
ilaa uu nebiga dhibay calayhi salaatu wasalaam. waxaa yimid abubakar oo socdaa yimid, kadibna ninkii cuqba ayuu kala tuuray. markaasaa waxa uu ku yidhi ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbiy allah, ma waxaad dilaysaan nin iniila yimid oo yidhi rabbigay waa allah. wax kale muxuu sameeyey? dembiga uu la yimid uu sameeyey muxuu yahay? ma waxaad ku dilaysaan inuu yidhi rabbigay waa allah? ma intaasaad ku dilaysaan? ninkii wuxuu bilaabay marka mu'minu aali fircawn, wuxuu bilaabay inuu u naseexeeyo, uu waaniyo, uu aakhiradooda uu u sheego, waxa sugaya uu u sheego. nasaa'ix aad iyo aad u qaaliya ayuu u sheegay. suuratu zuma ku noqon. fircawn baa hadlaya markuu arkay inuu ninkii meesha ka dhex dhawaaqayo, inuu nin runta u sheegayo, inuu gurigiisii laga soo dhex toosay markuu arkay, ayaa fircawn waxa uu yidhi waqaala fircawnu maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad. war waxaan arkayo, waxaan inii sheegayo, waxaan inii ogeysiinayo waa xaqiiqadu sida ay tahay, waa runtu sida ay tahay. muuse wuxuu u yimid inuu diintiina u bedelo. muuse wuxuu u yimid inuu dhulka u fasaadiyo. arrintaasi aan inii sheegayo xaqiiqada ayaa sidaasa ayuu yidhi. laakiin axibbatii fillaah, labada arrimood uu sheegayaba labadaba been ayuu ku sheegay. ta hore ilaahay waxa uu yidhi wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum. nebi muuse inuu run sheegayo fircawn wuu garanayaa, wuu og yahay, laakiin wuu inkirayaa. waa kii nebi muuse ku lahaa fircawn laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa rabu الsamaawaati wاlأrض basaa'ira wainii laadunnuka yaa fircawnu mahbuura. waxa uu ku lahaa muuse, nebi muuse calayhi الsalaam, fircawn waxa uu ku lahaa fircawna waxaad og tahay inuu ilaahay soo dejiyey xaqa, waad og tahay, laakiin waad inkiraysaa. fircawn waxa uu yidhi wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad, waxaan inigu toosinayaa dariiqa saxda ah ee toosan, jidka saxda ah ayaan inigu hanuuninaya anu keligay, laakiin muuse iniguma hanuuninayo. ilaahay waxa uu yidhi faattabacuu amra fircawn, fircawn arrinkiisay raaceen. wamaa amru fircawna birashiid, arrinta fircawn ma toosna, xaq ma aha, sax ma aha buu ilaahay yidhi. ilaahay aayad kale waxa uu ku yidhi waadalla fircawnu qowmahu wamaa hadaa, fircawn qoomkiisii wuu lumiyey, ma hanuunin. axibbatii fillaah, idan fircawn wuxuu sii watay inuu doodo. ninkii mu'minka ahaa ee ehelka fircawn ka mid ahaa ee shirka ku jirayna wuxuu bilaabay inuu qoomkiisii u naseexeeyo, inuu waaniyo ayuu bilaabay, isagoo aakhiradoodana xasuusinaya. waxa uu yidhi waqaala aladii aamana yaa qowmi ittabicuun ahdikum sabiila arashaad, war iraaca dariiqa saxda aan ini tusi. yaa qowmi inamaa haadihi alxayaatu dunyaa mataac, adduunkani waa meel qurqurux, waa meel yaroo gaaban, noloshan adduunkii. waina alaakhirata hiya daaru lqaraar, daarta aakhiraa baaqiya oo sugan, taa ogaada. wuxuu bilaabay ninkii mu'minka ahaa inuu dacwadii uu sii wato, inuu khayrkii sii wato. kadibna waxa uu ku lahaa fasatadkuruuna maa aquulu lakum, hadalkayga waad xasuusan doontaan. waufawidu amrii ila allah, arrintayda ilaahay baan u dhiibanayaa. ina allaha basiirun bilcibaad, ilaahay addoommadiisa wuu arkayaa. kadib waa lagu kala kacay, shir bay gaar u galeen. waxay ka shireen waa maxay? ninkan xaggu ka soo baxay, xilimuu islaamay, ninkan ha la qabto, ha la dilo. xumaan baa dabadeedna loo qorsheeyey, makrin bay bilaabeen inay yidhaahdaan ninkaasi ha la soo qabto oo ha la dilo. ilaahay waxa uu leeyahay fawaqaahu allaahu sayi'aati maa makaruu, xumaantii ay makrinayeen iyo wixii ay la doonayeen ilaahay uu ka badbaadiyey. waxaaqa biaali fircawna,
suu'u lcadaab cadaabka kiisii xumaa ayaa haleelay fircawn iyo ehelkiisii annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya ilaahay waxa uu leeyahay fircawn isaga iyo ehelkiisa waa la halaagay naartana waa loo bandhigi maalinka qiyaamahana waa yowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab waxaa la odhan fircawn iyo ehelkiisa naarta ta ugu kulgeliya ninkii waa ka baxay meeshii nebi muuse u tegay calayhi salaam arrintu siday u jirtayba ugu warramay kadibna ilaahay wuu badbaadiyey nebi muuse iyo ninkii iyo intii rumaysay way badbaadeen fircawn iyo ehelkiisii iyo dadka qorshaha xun waday iyo wasara'daasi intaana ilaahay wuu qaraqay wuu baabi'iyey wuu halaagay adduunkana way ku khasaareen aakhirana way ku khasaarayaan axibbatii fillaah waxaan ka faa'iidaysanaynaa qofka mu'minkii waa qofka diintiisa ku adag waa mabdi'iisa ku adag waxaan ka faa'iidaysanaynaa qofka daacigii xaqa wuu ku dhawaaqaa usluub wanaagsanna wuu u maraa ninkaa way ninka arkaya codka marna hoos buu ugu dhigay marna kor buu ugu dhigay marba si ay u rumeeyaan wuxuu la doonayaa wanaag wuxuu la doonayaa khayr wuxuu la doonayaa inuu badbaadiyo axibbatii fillaah waxaa kaloon ka faa'iidaysanaynaa mar walba xaqa iyo baatilku loolankaasi ayay ku jiraan xaqa iyo baatilku loolan ilaa qiyaami saaca shar iyo khayr labaduba way jiraan la waayi maayo laakiin mar walba waa inuu xaqu dadaalo oo baatilka uu ka hor yimaado taasaa saxa axibbatii fillaah darsigeena dambe ee soo socda la socod wanaagsan waa qisasun fi lqur'aani alkariim wajazaakum allahu khayran وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين